baha ka mid ah anigu jiif caaqilkii baan reerka Bohood kuwa saxaafadda horu qabtay suldaankana jiifkoodii baan kuwan halkan saxaafadda ka hayna jiifkoodii baan mid walba jiif caaqil baan u ahay waxaan leeyahay nimanka qurbaa ka yimi reerka ku soo dhex tuuray furka ku soo dhex riday kale dawladana waxaan leeyahay arrinaan isloogna ma iyo deriska iyo cid walba waxaan u sheegaynaa arrin baha shaaciyan arrintaas ma aha koox qurba joogo 20 sano iyo 30 sano ka maqnay dalka anagu jeedada kale in garan mayna ayaa shaacisay marka waxa weeyaan sadadkana saasaan ugu sheegaynaa cid walba oo dhageysanaysa waxaan leenahay arrintaas arrin waxba ka jiraan maaha arrin baha doorteenna maaha arrin baha shaaciyanna maaha wax ka jira arrinta ma jiraan anigoo ah caaqil cali cumar xasan kana tirsan oqaasha beesha Bohood kuna sugan degmada Ceelaf Weyn halkan waxaanu ka cadaynaynaa haddaanu nahay oqaasha beesha Bohood oo dhan hadal ka baxay miidiyaha oo koox ka mid ah beesha Bohood ay miidiyaha ka shaacisay in suldaan lagu calaamad saari doono degmada Ceelaf Weyn beeshuna ay soo dooratay waxaanu cadaynaynaa inaanaan waxba ka ogeyn haddaanu nahay oqaasha beesha Bohood dhammaantayo inaanaan waxba ka ogeyn naloona sheegin nalana socodsiin shaacinna ayaanu cadaynaynaa waxaanu sheegaynaa xukuumadda Soomaaliland beelaha deriska walaalahaya waxaanu sheegaynaa beeshu inay leedahay dhaqan soo jireena oo dhaba inay leedahay waayeel iyo duqay inay leedahay talo iyo kala dambayn iyo midnimo maskaxdeeda iyo muruqeeda iyo maalkeeduna uu isku mid yahay marka inta ka bacdi kooxdaas sheegtay ama shaacisay suldaanka waxba kama jiraan waxna kama ogin beeshu nabad beelaha guudna nabadgelyo kula nooshahay gudaheedana nabad bay ku wada nooshahay wixii lagu daro intaa waa khalkhal iyo nabadgelyo xumo kooxdaana waxaanu leenahay haddii ay walaalayaal wax tabanaysaan beeshu waxay leedahay marjic iyo miis wada hadal bay leedahay marjiceennii iyo miiskeennii wada hadalka u soo noqda laakiin waxa aad sheegteen ka noqda anigoo ah ka mid ah cuqaasha Bohood bahaa soo xushay inaanaan haddaanu nahay ka dhaqan ahaan iyo ka cuqaal ahaan inaanaan waxba ka ogeyn taasoo ay wadeen guruub qurba jooga dabadeedna arrinkaa shaaciyey waxaan u sheegaynaa dhammaan madax dhaqameedka beelaha deriska ah inaanaan anagu arrinkaa waxba ka ogeyn ka cuqaal ahaan iyo ka waayeel ahaantoonna markaa arrinkaasi uu yahay runtii afar dhacday oo aan la isku soo gaadhin waa suldaan la shaaciyey iyadoo aan waxba lagala socon iyadoo aan hore loo shaacin iyadoo aan maxaan ku dhahay fakar iyo talo badan cidna laga gaadhsiin in la shaaciyey sidaa darteed waxaanu u sheegaynaa arrinkii la shaaciyey inuu yahay midaanan waxba kala socon midaanan ogeyn intaasaanu u sheegaynaa dhammaan beesha Bohood waxay daaran tahay oo ujeedadeedu tahay shaacin suldaan oo bisha 26keedii lagaga dhawaaqay degmada Ceelaf Weyn taasoo laga been abuurtay guurtida xuqaasha iyo gudiyada iyo maamulka beesha Bohood oo lagu sheegay inay soo xusheen suldaankaasi ayna caleema saari doonaan bisha 10keeda taasoo ah mid laga been abuurtay beeshaasi ahna midaan waxba ka jirin aanayna jirin cid lala socodsiiyay arrintaasi oo loola yimi oo wax ka og cidda gacanta ku haysa maamulka iyo hogaaminta beesha Bohood oo ah cuqaasha iyo jiifkooda iyo inta la shaqaysa sida waxaanay koox yar oo baha ka mida ayaa been abuuratay
oo tiri baha waa noo dhan yihiin suldaanna waa soo shaacis caleemasaarkiisuna wuxuu waa bisha 10keeda waxaanu u sheegaynaa ummadda dowladda Soomaaliland ee uu xukumo Muuse Biixi Cabdi iyo haddii la kuriyay wasiiradeeda iyo maamulkeeda oo dhan iyo beelaha deriska ah walaalaha iyo ahreeraha naga xiga arrinta been abuuradka ah la yiri baha waa u dhan yihiin oo waa soo xuleen waxba inaanay ka jirin waanu beeninaynaa waxba kama jiraan reerku wuxuu leeyahay madax dhaqameedo wuxuu leeyahay guurti tala qabeena hadhow halkan baanu caleemasaar ka wadnaa inaan arrintaa waxba ka jirin oo baha u diyaarahayn oo arrin baha qusaya aanu ahayn oo cid lagala shiray iyo cid ka tala gashay iyo ciddaa lagu magacawday ee la yidhi waa la soo xulay aanay waxba ka jirin axmed maxamed cilmi on cable tv